Hey, assalamu alaikum. Kusoo janka huda taajir. Haddii aad nagu cusubtahay fadlan soo dhawo. Haddii aad nagu cusbeen welcome back. Yes, maanta waxaan ka hadli doonaa inta buugaag aan akhriyo, buugaagta akhriyo noocooda, inta buugaaga sanadka akhriyo iyo sida aan u qorsheeyo. Laakiin inta taa aanan u gudbin kooga horta vlog yar ayaan soo dhexgelinaynaa. Weekend waaye maanta waxaan la balansanahay laba gabdhood saaxiibanahay magaalada ayaa iskala quraacan doona waa gabdho mar hore igu dambeysay kabacdina waa mawduucina sii wadanayna marka ha dhaqaaqin. marka maanta waxaan ka hadlaynaa meeqa buug ayaa akhristaa sanadkii waxaan goal waxaan samaystaa inaan akhriyo adiga isbuucii hal buug ugu badnaan iyo ugu yaraanba yani inaan hal buugna kadib dhicin hal buugna aanan ka badnaanin. goolkayga badankeeda waxaa waay hal buug inaan akhriyo isbuucii oona aanan ka badnaanin aanan ka yaraanin. marka bugaagta akhrinayo waa nooce badanaa bugaagta aan akhrinayo aniga waxay ku saabsan yihiin waa afar isbuucan qabaa korta badan horta waxaan akhristaa dadka successfulka sida dad aan isdhahayo kaleeto waa dadkaas kaleeto hadda noloshooda aad dhageysatid maybe waxbaad ka fahmaysaa siday u fikirayaan oo kaleeto Oprah Winfrey oo kaleeto Ellen DeGeneres ha ahaato maxaan ku idhahdaa Obama, Steve Jobs, Obama xaaskiisa Michelle, yani you name it, dadka dhan oo ama business ha ahaadaan ama si kaleeto magaca ku samaysteen ee adduunka laga yaqaano kaleeto inaan buwaag oo noloshooda ka sheekeynaya aan dhageysto. So week 1 badanaa biography ayaan dhageystaa. week 2 waxaan dhageystaa aan ku dhahaa yani buwaagta badanaa horta haddii goolkaaga uu yahay inaad 52 buug aad sanadkii aad akhrisid 52 buug cusub maalin kasta ma soo gadi kartid. So marka waxa ani aan sameeyo oo aadna iigu raqiisan waxaa waay 2 application oo Sweden caanka ah ayaa isticmaala dhanka buwaagta kaleeto marka waa audio buwaagtii dhan marka buug kasta oo any field aad rabtid badanaa labada meel way ku jiraan iyadoo marka ama qoraal camal aad akhrisan kartid ama dhageysi aad dhageysan kartid. anigana dhageysi aad aan u jeclahay dadka waxaan ahay haddaa wax dhageysanayo I can consume yani dhib ila ma aha maanta waan wadi karaa buug laakiin markay tahay special haddana hooy aan sii ahay inaad la fadhiisatid aad akhrisid buug ahaysid ciyaalka kugu soo boodaan it's not that easy saa iigu fudud. So markaan xoog waxaan saaraa methodka ii fudud marka waa dhageysiga. So marka hal isbuuci markaad soo noqdaadkii isbuuci hal buug asaas aan ku dhageystaa marka week maadaama bishina ee tahay 4 week iyo bar 4 week iyo 2 bir 3 bir camal ee tahay muhiimka marka waxaan saaraa isniin ilaa iyo axad inta u dhaxeyso buug waa ina akhriya kabacdi kale ma jecli bishaas haddii 4 isbuuc kusoo aaday haddii 5 isbuuc kusoo aaday waxaan ogaa uun isniin kasta inaan buug cusub bilaabayo. week 2 oo kaleeto markasta week 2 waxa ii saaran oo kaleeto mararka qaarkood waa kala bedeli karaa laakiin week 2 badanaa waxay ku saabsan tahay kobcinta nafsadeeda oo kale si ahaato sidee time management-gayga balki more efficient aga dhigi karaa sidee productivity-gayga aan u kobcin karaa sidee ilaa dukuuran yahay effectiveness-kayga u wanaajin karaa sidee routines kan ka fiican u heli karaa sidee habit-kayga u bedeli karaa yani badanaa wax oo markaan dhageysto aan isdhahayo kaleeto wow okay waxaan haddaa buugan aan kala baxo dabeecaddan haddaa nolosheeda ku dabaqo way ii fududaanaysaa sidaa fikira. week 3 ama week 2 oo kale xataa wuu noqon karaa haddaa booska kala bedelo. week 3 badanaa wuxuu ku saabsan yahay finance dhaqaale yani
sidee dhaqaalay u kobcin karaa ama savings ama investment oo yani wax ii taraya wax badan ii soo celinaya returnkiis fiican aan u heli karaa so badanaa marka waxaa inaa dhankaas kale iska dhiso kale dhanka investmentiga inaa ha ahaato cryptocurrency ah xooga saara ama ha ahaato real estate na xooga saara ama caadi stock market oo kale ta ahaato يعني you name it that week buuga aan dhageysana ama xooga aan saarayo badankeeda waxaa waay investment financial ama sidee xatee saving caadi maalmaha caadiga sidee wax saving extra uga samayn karta ama aad iskaga bedeshaa dabeecadaha oo consuming ee maanta oo dhan wax le inaa beerdaraysid beerdaradoo kaleeto si loo joojin lahaa kaleeto ku bari karo waxaa kusoo hartay week 4 badanaa marka waxay ku saabsan tahay business like leadership ahaan oo kaleeto sidee maxaa sameyn kartaa management oo kaleeto and innovation oo kaleeto sidee new ideas good ideas oo ka duwan kuwii horeeto sidee loo sameyn karaa sidee how to motivate teams oo kaleeto how to build good teams oo kaleeto sorry no English sidee team wanaagsan sidee loo dhisaa sidee loo manage gareeyaa organization oo kaleeto innovation sidee lagu sameyn karaa يعني wixii lamid iyo business iyo adduun weynaha shirkadaha oo leading oo kaleeto yaa waaye maxay sameynooyin ina baaki يعني updated aan ahaada dhankaas oo kaleeto I love business so wadanyasha kaleeto maxaa ka dhacayo kaleeto international business especially international business aad ugu sii haysta yes iyo wixii la mid ah so marka waxa ku soo haray week 5 xooga waxa saara islamically yani maxaan ka baran karaa diin ahaanta kaleeto muxaadarooyinkana waxaan jeclahay oo englishka ku baxo badana aad waxa u dhageysta waxa way Umar Suleyman oo Mareykanka degan yahay actually dhalinyaro xitaa yahay sidoo kaleeto Nu'man Ali Khan asagana sidoo kaleeto waxa amalena Umar Suleyman Middle East oo kiimada Nu'man Ali Khan inuu yahay Pakistan I think English ikana Mareykanka ku dhashteen ku kaneen sida u fahmay English ku baxda and I iyo mutfimen ka taa wajaalan saddexdoodaas mid la yaasir laxte anyways muxaadarooyinka oo ik badan koo soo dhigana dhageysta okay yeah so marka maxaa sameeyaa maalintii adiga subaxii waxaa jadwalka iigu jiro kaleeto nus saac inaa akhristo inta u dhaxeyso early routine-keyga morning inaa nus saac aan dhageysto buugaagta iyo haddee muxaadaro tahay wax jadwalkeyga ku jiro isbuucaas inaad dhageysto kabacdi habeenkiina 9 ilaa 9:30 inta u dhaxeysan iyadana waa dhageysta so marka 30 minute in the morning iyo 30 minute oo habeenkii oo kaleeto halkaas saaca maalintii aan u qorsheeyay inaan ku dhageysto buuggan oo kaleeto weekendiyada laakiin meesha nus saac ay ka tahay hal saac ka dhigaa marka badankeedana markasta muhiimadda waxaa isweydiiyaa laba su'aal buuggan ama muxaadaradan maxay ku saabsan tahay koow buuggan ama muxaadaradan maxaa kala baxayaa oo yacni i anfacayo hadeer oo aan dabeecaddeeda kusoo biirin kara so markasta labadaas wax ayaa xooga saaraa marka buug aan dhageysanayo kaleeto mararka qaarkood kaleeto waxaa laga yaabaa inaa buugaagta qaarkood aa u dhageysto un inaa arko siday u fakerayaan oo kaleeto yacni waxaa laga yaabaa waa method aan weligii aan isticmaali lahayn amaba oo mar hore yacni laga baxay oo kaleeto laakiin si aa u barto okay interesting ogaada un waxa kala duwannahay markaasna inaa u akhristo waa laga yaabaa markaasna waxay noqonaysaa muxuu ku saabsan yahay يعني سيدنا uga bedelan tahay dabeecadaha hada ahaysto oo aanan yani maxaan ka qaadanayn camle markaas noqonaysa ma fahamtay so marka saas ay marka ku noqonaysa ina akhriyo sanadkii content book ugu yaraan so yeah so marka saas ku balance gareyso marka aad muhiim u tahay in buug la akhriyo kaleeto reading is important fahankaaga wuxuu la egyahay inta aad fahamsan tahay adduunkii kaleeto wax ka dhacaya iyo waxyaabadaas kaleeto haddii aad Sweden iga daawanaysid applicationan waxaa lahaa next story waxa way app midka kale waxaa la storytel markii isticmaala aniga at least 10 sano ugu dambeysay next storyna waa kusoo darsaday mararka qaarkood waxaa dareemaan in
next story ay ku jiraan buwaag meesha kaleeta aana ku jirin marka saas iskugu complete gareeya sidoo kale next story waxay ku fiican tahay sida haddeer u qaabeynayo kaleeta goolka sanadka aan haysto kaleeta ugu yaraan 50 buuga inaa akhri ahay wuu kaa caawinayo markasta abuug akhrisid meesha abuuga akhrisato kuu dhigayo kasoo ku dhahayo okay hadda waxaad akhrisatay 20 buug sanadka waxaa kaaga dhiman 30 buug inaad akhrisid so marka waad la socotaa markaas inta buug aad akhrisay sanadkan inta kuu dhiman oo kaleeto marka waxaan rajeynaa inay ku caawisay markasta ogaado waxaan rabaa in yacni waxyaabo qaarkood aa isdhahayo kaleeto qofkii oo arka uu ka faa'iidi kara kale inaa idinla qaybsado idinkana haddaad haysiin mawduucyaal kaleeto aad rabtiin inaa idinkaga hadlo waa soo hoos iigu soo qoraa oo insha allah waxaa isku daya inaan soo diyaariyo marka asxaabteeda waa idin jecelahay waa mahadsantihiin haddii aadan hore subscribe aadan u saarin fadlan subscribe-ka ha iloobin iyo gambaleelka si aad u ogaatid inaan wax kaleeto soo dhigo axad kasto waxaan noo soo dhigi doonaa video cusub marka ha moogaanin taas mac salaama